wuxuu yahay inaan ogaano in shirkadda ama qofka aan rabno ama ganacsadaha aan rabno inaan ka iibino adeega SEO-ga horta hore website-kooda ma ku jiraa Google-ka mise ku jiraa meelaha kale ee wax laga baaro. waxay noqon kartaa Bing oo kale, wuxuu noqon karaa Yahoo oo kale, ma ku jiraa meelahaas. inta badan way isaga mid waxyaabaha aan ku tusi doono, laakiin Google-ka ayaan tusaale usoo qaadanayna maadaama aan soo baranay inuu yahay shirkadda ugu weyn ee dadku ay wax ka baaraan. waxaad furaysaa Google-ka ayaa furaysaa ama browserkii kugu jira meesha ayaa furaysaa. markaa furto qaybta wax laga baara ee noo furan, deetana waxaan ku qoraynaa ereyga site oo ah afartaas xaraf oo ah SITE ayaan ku qoraynaa, deetana colon labadaas dhibcood oo isdul saaran, deetana waxaan ku qoraynaa website-ka aan rabno inaan ogaano in uu ku jiro Google-ka. ogo waa muhiim, website-yada qaybta u dambaysa way ku kala duwan yihiin. qaarkood sidaa og tahay waa .net oo kale, qaarkood waa .com, qaarkood waa .org. marka markasta waxaa lagaa rabaa inaad og tahay qaybta u dambaysa, waayo waa muhiim inaad qaybtaasi ku darto halkan. markaan qorno intaasi waxaan leenahay enter aan leenahay. enter markaan dhahno waxaan noo soo baxay sida ujeedo waxyaabo badan noo soo baxay oo website-kan wariyaha.com ku saabsan noo soo baxay. marka taas waxay ka dhigan tahay in website-kani uu ku jiro Google-ka. weliba qaybta kore markaad eegto waxaa ku qoran macluumaad muhiim ah oo ah inta natiijo ee website-kan ka tirsan ee Google-ku uu soo qabtay ee Google-ka ku jirta. waana wax muhiim ah inaad halkaa marka u horeeya aad eegto. markaad qaybta kore aad eegtay oo natiijada tiradeeda inta natiijo uu soo qabtay aad ogaatay, qaybta ka hooseysa